maayarka caasimadda Hargeysa mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid oo warbaahinta dalka xafiiskiisa ugu waramayay ayaa ka hadlay qodobo dhowr oo la xiriira caqabadaha lagala kulmo xilli roobaadka jidadka iyo biyo mareennada magaalada Hargeysa qashinka iyo amar wasaaradda shaqagelinta Somaliland ay soo saartay oo ku saabsan muwaadiniinta meheradahooda ay ka shaqeeyaan dadka ajaanibka mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid ayaa sheegay in dawlad hoose ahaan ay hubin doonaan dadka ajaanibka ee ka shaqeeya meheradaha magaalada Hargeysa inay haystaan sharciga ogolaanshaha dal ku soo galka iyo waraaqda shaqada annagoo fulinayna amarka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada in meherad kasta oo shaqaale ajaanib ay ka shaqeynayaan dhammaan degmooyinka caasimaddu ay jeegareeyaan in shaqaalahaasi ay haystaan waqadii shaqa qaadashada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada taasi oo noqonaysa in qof kasta oo muwaadina oo meherad furtay oo shaqaale ajaanib u shaqeeyaan oo aan bixin ganaax lagu dhufan doono iyadoo ganaaxa marka la dhufto muddana la siin doono inuu soo qaato waqada shaqada la aqbali maayo meherad ay shaqaale ajaanib ka shaqeeyaan oo ayna haysan arrimihii sharciga looga baahnaa tusaale ahaan shaqada fiisihii dalku galka iyo deganaanshihii intaba aan haysan degmo kastaaba waxay waajibkeedu yahay inay intaba jeegareyso iyadoo kaashanaysa ciidamada immigrationka shaqada hawsha kule iyo ciidanka bilayskaba dhinaca kale Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid waxa uu sheegay in mas'uuliyadda qashinka caasimadda uu yahay mid mas'uuliyadiisa la wada leeyahay dawladda hoosena hormood ay u tahay qodobka labaad waxa weeye ummad islaamo baynu nahay waxa laga yaabaa in badan la isku celceliyo mas'uuliyadda qashinka mas'uuliyadda qashinka waxa ka mas'uula ummadda oo dhan dawladda hoosena hormood bay ugu tahay waxaan u sheegayaa shacbiga xeerkii soo baxay ee qashinku sida uu farayo qof kasta oo muwaadina waxa laga doonayaa aqalkiisa iyo wajahadiisa ilaa laamida inta u dhaxaysa isaga ka mas'uula dhici mayso inuu kii aqalkiisa hortiisa uska gahaa intuu soo fadhiisto TV-ga inuu ka caytamo oo uu yiraahdo sameeya waxaynu lahaan jirnay dhaqan fiican tusaale ahaan marka dib u eegto waxaad arki jirtay anagu waqtigaan iskuulada dhiganaynay iyo subaxdii markaad kacdeed ka laahdo hooyo kastaaba waxay fiiqi jirtay wajahadeeda laakiin waxay nagu soo batay imka hadda in qofka aqalkiisa gudihiisa uu nadiifinay laakiin aan wajahadeeda nadiifinayn shacbiga in badan oo wanaagsan way sameeysaa laakiin waxaanu laba qodob u kala qaadi doonaa qof kastaba waxa lagu ganaaxi doonaa sida xeerku dhigayo aqalkiisa wajahadiisa waxaanu gooni ula macaamili doonaa meheradaha ee ku soo kordhay magaalada ee kolayada qaadka iyo ee inta qashinka soo qaadaan wadada dhigaya degmo kastaaba degmadeeda iyadoo kaashanaysa saldhigga bilayska iyo hay'adaha laamaha kala duwan ee bilayska iyo maxkamadda degan degmada in hawsha wax ka qabato waa dhab xilli roobaadkii ugu badnaa ayaa sanadkan da'ay taasi oo kaliftay in ay wadooyin badan go'aan kun ahaantii Hargeysa marka loo eego muddadii hore dad aad u yar deganaa dad aad u badan iyo dhismihii waa batay biyo mareennadii sida saakaba shaqadu ay ka socotay degmooyinka qaar gacan libaax iyo biyo mareennadii aan dhismaha u baahnayn dawladda hoose shaqadeedii bay ka qabsanaysaa kuwa dhismaha u baahnaana iyadoo lala kaashanayo ganacsato kasta hortiisa ay marto waxa weeye in drainage-yadiina la dhisi doono maadaama xilli roobaadkii uu gabaabsi yahay wadooyinka burburayna waxa la sameyn doonaa adduunyada saacadaha qaar baa la moodaa in dhaliil looga dhigayo dawladda hoose waa dhab wadda way burburtaa adduunyada hore u martay bay ka burburtaa in la wada dhiso iyadoo dawladda hoosena mas'uuliyaddeeda qaadanaysa xilli roobaadku markuu yimaado iminka magaalooyinka waaweyn ee dunida koowaadii waxa had iyo jeer la lahaa oo xal loola wadooyinka googaay dhaqaalaha ku baxaa intaas uu leeyahay sidee baynu u maareyn karnaa inuu yareyn karnaa istadigeeda hadda doontaana waa idin soo dhigi doonaa marka waxa muhiim ah inaynu ogaano shacbi inaad magaaladaada caayin oo aanad oran
adduunyada magaalo kastaba imka waxa la soo dhigay sawirkeeda oo go'aan laakiinse waxa bilaabay dadkeena waxaan leeyahay taana wadooyinkina waa la dhisayaa shacbigana waxaan leeyahay muwaadin intii aad ku xiiqi lahayd inaad qoraal mala awaala qorto inaad ka qayb qaadato dhismaha magaaladaada aanad ag istaagto dawladdaada hoose iyo dawladdaada dhexe cashuurtana aad bixiso qodobka afraad ee raaca waxa weeye iska rogooyinka waxaanu heer caasimadeed iyo heer gobolba aanu ku soo saarnay go'aan in aan dooxa laga goyn ciid iyadoo la soo diyaariyay ganaaxii iyo bliiskii qabanayay dhulkii leedin aasteeyay ee ka baxsanaa magaalada inaad tagtaan waayo Irish British kasta oo agtiisa ciid laga goraa wuxuu keenayaa inuu cimrigiisa soo yareeyo oo Irish British kaasna go aad baa u mahadsantiin